الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، waxaynu sodhan doonaa kelimaad kooban in sha allahu tacaala oo ku saabsiisan nolosha tan miisaanka alla u dhigay subxaanahu wa tacaala in lagu qiimeeyo. laqad arsalnaa rusulanaa bilbayinaati waanzalnaa macahum alkitaaba waalmiisaan. rabbi wuxuu ina leeyahay subxaanahu wa tacaala, rusul baan soo diray iyagoo bayinaad wata, caddaymo wixii caddaynaya inay rusul yihiin, mucjizaad. maxaa lagu soo diray rususha? alkitaabu walmiisaan baa ilaahay tilmaamay. kitaabka iyo miisaan nolosha lagu miisaamo. casrigan dambe dadka waxaa aada uga lumay miisaankii nolosha gebigeedba. haddii bulshada waxay wax ku qiimaynaysaa uu lumo, mafaahiimtu ay qaldanto, nolosha oo dhan baa qaldantaa. dadka waxaa ka qaldamay xaqiiqatu dunya maxay tahay, adduunku muxuu yahay, dadnimadu maxay tahay, insaaniyad iyo bini aadamku muxuu yahay. way luntay. waxaa dunida hogaaminaya wuxuu filosofkii faransiiska ku tilmaamaya nidaam tafaaha. faransiis oo filosofa kanadiyan u dhashay ayaa kitaab qoray la yidhaahda nidaamu tafaaha, nidaamka liidashada, wax la-aanta. yacni dunida dad madhan baa hogaaminaya buu leeyahy. waa nidaam madhan. taafihi waa shayga xaqiirka ah, waa nidaam xaqiiroo liita. nidaamkani wuxuu lumiyey markaa dadnimadu maxay tahy, maxaa wax lagu qiimeeya. wuxuu dadka u raray in madaahirta, muuqaalka in wax lagu qiimeeyo. dadku u wada mashquulsan yahay, wuxuu ku mashquulsan yahay qurux wax la yidhaahdo. qof isqurxiyey, gabadh isqurxisay, quruxdii dunida loo lamayo. markay bini aadamka dhaafeen bay xayawaanka loolansiiyeen. nimanka gaalada agtooda maanta shooyaal la qabtaa laleeyahy rida dunida u qurux badan. markaasaa niman soo fadhiisanayaan oo sifaynayaan, indhaheedu say u eg yihiin, afkeedu siduu eg, waa ri. yani waa markay noloshu wixii wax lagu qiimaynayay uu lumo. noloshu muuqaalka maaha, sidaad u eg tahay ma aha. inaad madowday, inaad caddahay, inaad fool xuntahay, inaad fool xumayn ma aha. walidaalik ba anas ibnu malik wuxuu leeyahy waxaa jiri jiray saxaabadii nin ka mid ahaa oo la odhan jiray zaahir. saxaabiga kan zaahir la yidhaahdaa, zaahir ibnu lxaraam, wuxuu ahaa baa la yidhi nin aada u fool xun. marka quruxda iyo waxa bini aadamku ay sheegaan, nin aada u fool xun buu ahaa oo reer miyiya. nebiga calayhi salaatu wasalaam buu baadiyaha intuu ka yimaado hadiyad u keeni jiray. nebiguna magaaladu kasii taakulayn jiray oo ka diri jiray. walidaalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, ina zaahiran baadiyatuna wanaxnu xaadiruun. zaahir waa reer miyiga yagii, annaguna waxaanu nahay reer magaalkiisii buu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam. maalin maalmaha ka miduu zaahir magaalada yimi. nebiga calayhi salaatu wasalaam hadiyadu keenay. isagoo wixii uu sitay suuqa ku iibinayo, suuqii wax lagu kala iibsanayay jooga, ayuu nebigu xagga dambe kaga yimid. isagoo sii jeeda buu sidaa u qabtay nebigu, waanu sii jeedaa. ninka reer miyigii markaa wuxuu yidhi, war isiida, waa kuma? ma arko markaa ciddan haysa ee xagga dambe ka haysa arki kari maayo. isiiddaa markuu ku celiyey, isagoo aan arkaynin, arsilni uu leeyahay, ayuu hoosta ka jalleecay. dabeetana wuxuu arkay inuu nebigi yahay calayhi salaatu wasalaam. markuu gartay inuu nebi maxamed yahay buu isku nabay. markii hore isiiddaa buu lahaa, laakiin markuu ogaaday inuu nebigii yahay ayuu isku nabay. nebigu isagoo kaftamaya markaasi, waa kaftami jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam. walaa yaquulu ila alxaq, waxaan xaq ahayna kuma kaftami jirin.
isagoo haya buu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man yashtari hada alcabd war addoonkan yaa iga iibsanaya buu nebigu leeyahy suuqii bay dhex taagan yihiin xagga dambuu ka hayaa waa addoon ilaahay dadka oo dhami nebigu intuu qabtay buu wuxuu yidhi man yashtari hada alcabd addoonkan yaa iibsanaya zaahir baa nebiga u jawaabay markaa wuxuu yidhi yaa rasuula allahi idan wallahi tajidunii kaasida ilaahay rasuulkiisiiyo wallaan ku dhaartay waa kugu baariyayaa buu yidhi maxaad tidhahdaan alaabta marka suuqa lagaa iibsan waayo way baarixyooday ama way baariday ama way ku dhacday ama waa igu fadhiisatay waxaasay dadku yidhahaan soo maaha alaabaan keeno waa igu fadhiisatay waa kaa bixi weyday wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow ilaahay baan ku dhaartay haddaad aniga suuqi geyso waan kaasid baan kugu noqonayaa buu leeyay waa kugu baariyayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu u jawaabo wuxuu ku yidhi laakin cinda allahi lasta bikaasid ilaahay agtiisa mid kaasida ma ku tihid buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay agtiisa mid baariyaya ama mid ku qiimo liita ma tihid buu leeyay riwaayaadka qaarkoodna anta cinda allahi qaalib buu yidhi ilaahay agtiisa qaali baad ku tahay qiimaad ku leedahay xadiidku shamaa'il almuxamadiya ayuu ku qoray waana xadiis saxiixa muxuu tilmaamaya xadiidkani inaanu muuqaalka qofka bini aadamka qiimiisu ahayn dadku maanta maxaad ismarisay iyo maxaad xidhatay iyo maxaad kriimkaad soo isticmaashay iyo baraandkeebaad xidhan tahay maryahaaga ma nike ba mise waa heblaaye mise waa buuma waxaa laga fakerayaa muuqaalka iyo jirhkaagu siduu u dhisay iyo midabkaagu siduu u eg yahay waxay yidhahdaan dhallinyaro badan ba hadda facebook iyo waxa la midi waaleen waayo mid baa photoshop intuu galo oo gacantiisa wax ku sisifeeyo ayuu odhanaya halkaasaan joogaa markaasuu kanaan halkaa joogin niyad jabaya kanna waa been meeshuu sheegayaa waagii hore waxay yidhaahdaan qofku notebookiisa waxa uu qorto sir bay ahaan jirtay mudakaraadkiisa iyo wuxuu rabi jiray markuu dhinto iyo meelaha in la akhriyo iminkana qofku wax kasta u qoro intuu meesha ku soo dhigo like-ba layma saarin buu leeyahay lama akhrinin yani nolosha wixii lagu qiimaynayay baa isbedelay oo tawaafihdaa noqday nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ruba ashcaf madfuucin bilabwaabi low aqsama cala allahi la abara ruba ashcaf la arkay ama badana ama yaraka doontaba dhoo mid ashcafa mid basaasaysan aan feedhnayn oo madfuucun bilabwaab ah albaabada mid laga celiya ah aan manaasib iyo magac iyo muuqaal weyn iyo waxay dadku qiimeeyaan aan wadanin laakiin ilaahay agtiisa maxay ka ah low aqsama cala allahi la abara ilaahay hadduu ku dhaarto hadduu yidhaahdo wallaahi saasay noqonaysaa ilaahay uu rumeeyo sidii uu dhaartay looga dhigo u fiirso qof markuu dhaarto ilaahay uu rumaynayo dhaartiisa oo sidii ay noqonayso ilaahay agtiisa qiimuhu ku leeyahay intuu leegyahay laakiin cinda annaas wuxuu nebigu ku tilmaamaya inuu yahay madfuucun bilabwaab albaabada mid aan laga furin mujtamacii muslimkee hore aragtiday nolosha ka qabeen markay kaa ahayd bay xadaarad dunida keeneen markaasay horumar keeneen markaasay dunida hormood ka noqdeen markay ku dhaqmayeen inuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam in allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa amwaalikum walakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum ilaahay muuqaalkiina ma eegiyo maalkiina toona taasi alle agtiisa waxba kama aha kan foosha xunlaya kan quruxda badan waxa oo dhan waa sancadii ilaahay midna adugu maad samaynin marka sidaa u egtiin xoolahanina waa xoolihii ilaahay aad dunida ugu timi cerka kamaad keenin adugu meel cusub kamay soo bixin meelahan umaad ka soo ururisay waxaad xoola haysataan iyo muuqaalkaa leedihiin ilaahay agtiisa waxba kama aha buu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ilaahay se muxuu eegaa agtiisa qiimo ku leh quluubta waxa ku jira caqiide iyo iimaana iyo ilaahay weynayntiisa ah aliimaanu billahi wa bilyawmi alaakhir quluubtiina waxa ku jira iyo dhaqankiina waxa idinka soo fulaya acmaala idan ayuha alaxiba
المعرور بن السويد ninka la yidhaahdaa wuxuu leeyahy waxaan la kulmay saxaabigii la odhan jiray abaadar oo rabada tuulo yaroo u dhow madiino degan oo isaga iyo nin u shaqaynaya midba xulla xidhan yahay xulladu waa isku joog riwaayaadka qaarkoodna waxay idhaahdaan xulluu kala qaybiyo kana qayb buu xidhnaa kana qayb buu xidhnaa markaasuu ninkii wuxuu leeyahay maad isku joogga adigu isku xidhatid ninkan shaqaalaha intaad nus siinayso calaa kulli xaal meesha waxaa ka muuqata abudar iyo ninkii u shaqaynaya oo isku marya sita inagu dee shaqaaluhu waa miskiin yar baynu ka dhignaa hayliya xidhan ninka guriga lena uu xaragoonaya laakiin abudar isaga iyo shaqaalihiisaba isku wa xidhan dabeetana su-aal baa la weydiiyey maxaa dhacay baa la yidhi adiga iyo ninkii kuu shaqaalaha laydima kala garan maayo isku marya sideetaane abudar baa ka jawaabo wuxuu yidhi nin baanu beri ismaagno aan caaye dabeetana hooyadii baa ku caaye waxyo hooyada madoobe dhashay baa ku yidhi markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi yaa abaadar acyartahu biummi waar abudarow ninkan ma hooyadii baad ku ceebaysay innaka mra'un fiika jaahiliya buu nebigu yidhi waxaad tahay nin weli dhaqamadii jaahiliyada wax ka haysta halkii lagula rabay maad soo gaadhin buu nebigu abudar markaa u tilmaamayay miisaankaad wax ku qiimaynaysaa weli madow iyo caddaan iyo xoolo iyo waxa kana waxaan ilaahay agtiisa wax lagaga qiimaynin sida daraaddeed buu nebigu wuxuu ku leeyahy innaka mra'un fiika jaahiliya waxaa weli kugu sugan wixii qabla alislaam dadku ku dhaqmayeen wax ka mida war dadkani buu nebigu ku leeyahy ikhwaanukum khawalakum jacalahum allahu taxta aydiikum waa walaaladiin oo ilaahay gacantiina soo geliyey ee ninkii walaalkii uu la joogo shaqaale u yahayow falyuطcimhu mima ya'kul waliyulbishu mima yalbas war waxaad cunayso wax ka mida isna sii hambada ha siine waxaad cunayso wax ka sii waxaad xidhantayna wax ka huwi waxaanay awoodi karinna ha ku kallifin haddaad waxaanay qaban karayn inuu dirtana adiguna la qabo nebigaa sidaa igu yidhi buu yidhi xadiiska bukhaari iyo muslimka ku yaalla idan waxaan leenahay miisaanka wax lagu qiimaynayo ma aha madaahirta kaa muuqata maradaad xidhan tahay iyo sida muuqaalkoogu u eg yahay iyo gurigaad ka soo toostay intuu leeg yahay iyo waxaad qiyaastaa nebi maxamed oo gurigu ku tukanaya uu ku jiray isaga iyo xaaskiisu ay ku jireen markuu sujuudayo oo cagta ka qajidhan iyo cagaa ka laabanayso waa meel aan laba qof wada mid tukanaya iyo mid hurda wada qaadin ayay u muuqataa innaga qol fadhaa la yidhaahdaa mid hurdaa la yidhaahdaa mid soogal baa la yidhaahdaa mid waa lagu qubaystaa mid waa lagu waxaa laga yaabaa ka innaga musqushaynoo ah inuu ka weynaa guryihii saxaabada haddana kuwaasay ahaayeen kuwii dunida wax ka beddelay sida awgeed miisaanka dadka lagu qiimeeya ama nolosha lagu qiimeeyo ma aha inta aad adduun iyo xoola haysato su-aal labaadaan keeno saxaabi baa jiray julaybiib la yidhaahdo julaybiib waa tasghiiru jilbaab julaybiib waxay yidhaahdaan nin gaaban oo fool xun waan xoola haysan buu ahaa yacni wixii dadku ay wax ku qiimaynayaan qurux male dharar ninna le ma aha hanti nin haysta ma aha saasay ku sifeeyaan julaybiibkii nooca ahaa buu nebigu ku yidhi war maad guursatid julaybiiba maad guursatid markaasuu yidhi oo yaa aniga gabadhi siinaya yaa gabadhi siinaya nabiga calayhi salaatu wasalaam madiine saxaabada joogtay cid waliba waxay jeclayd inuu nebiga la xidido oo gabdhaha reerahe soo koray nin waliba wuxuu jeclaa inuu nebiga kula xidido dabeetana reer ansaartii ka mida buu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam maalin yaa fulaan zawijnii ibnatak hebelow inantaada ii guuri ama inantaada isii haddaynu tacbiirkeenna inagu isticmaalno inantaada isii buu ku yidhi wuu farxay ninkii nebi maxamed oo gabadh ku weydiistay nacam wa nucmaa caynin buu yidhi haa yani waa ku siinaya waaba nucmaa cayn waa mid ili ku doogsato in nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xididnimadiisa aada hesho
dabeetana nebigu ninkii wuxuu ku yidhi innii lastu linafsii uriiduha anigu naftayda u dooni maaya buu yidhi nebigu calayhi salaatu gabadha waa kaa doonaya laakiin anigu ma ihi qofka naftiisa u doonaya qaala faliman oo haddaa ilaahay rasuulkiisiiyo yaad la rabtaa buu ku yidhi qaala lijulaybiibin buu nebigu yidhi julaybiib baana inanta u doonaya ninkii markaasuu dib uu yaro fadhiista dabeetana wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow debel inanta hooyadeed aan la tashado inanta hooyadeed aan la tashado inanta hooyadeed baa loo tegey wuxuu ku yidhi nebi maxamed baa inantii inaga soo dooray iyana sidii si leeg bay tidhi nacam wa nucmaacay markaasuu yidhi lafihiisa u dooni maayo nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasay tidhi faliman yuriiduhaa haddaa inanta yuu inoo weydiinaya waxaa lagu yidhi wuxuu inanta u doonaya lijulaybiib ninkii julaybiib la odhan jiray ayaa gabadha loo doonaya islaantii waxay bilowday xalqaa bay tidhi xalqa waa min xalqa waa xiristi waa ba'ayay oo kale iyo jabaya iyo hoogayay da soomaalidu tidhaahdo oo kale weeyaan islaantii waa waraana iyadu filayninba ali julaybiibin bay markaa ku xigsiisay ba'aya iyo ma julaybiib baaba maanta la ii wadaabay islaamtu leedahay waaba dhaaratay laa lacamrullahi laa uzawiju julaybiiban ilaahay baan ku dhaartay julaybiib anuu gabadh iska siin maaya bay islaantii u booday odaygii dee islaanta warkeedii arega markuu is idhi kac ayaa gabadhii hadashay oo xagga dambe fadhida hadasho waxay tidhi man khatabanii ilaykuma ooyo yaa ikiin weydiistay waxaa lagu yidhi ilaahay rasuulkiisa waxay ku tidhi oma ilaahay rasuulkiisa warkiisaa celinaysaan inta nebi maxamed idin yidhi gabadhi siiya ayaa odhan doontaan ku siin mayno idinku nebiga igu wareejiya waxaan hubaa inaanu nebi maxamed ay dayacayn bay tidhi idfacunii ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayh waaalih wasalam fainahu lan yudayicanii nebiga igu wareejiya bay tidhi nebigu i dayici maaye odaygii iyo islaantiiba inanta warkeedii waa ka farxiyo waa aqbaleen dabeetana nebigii buu u tagay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi sha'nuka biha fazawijha julaybiiba gabadhii waa ku siinay ilaahay rasuulkiisiiyo wey u guuri julaybiib iyo ciddaa aad doonaysaba nebigu calayhi salaatu wasalaam julaybiib buu gabadhii u guuriyey riwaayaadka qaarkood waxay tilmaamayaan inuu duceeyey wakti yar kadib baa dagaal dhacay dagaalkii bay muslimiintu galeen dabeetana waa la islaayey dad muslimiina baa la dilay markii dagaalkii dhammaaday ee cid weliba meydkeedii urursanaysa iyo dadkii maqnaa la tirinayo ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam tafquduuna min axad waar cidna ma idinka maqan tahay waa la isbaadhbaadho kolba hebel baa maqan hebel baa markii dambe waxaa la yidhi cidima maqna reerihii magaca lahaa dee raggoodun baabay tiriyeen dabeetana waxaa la yidhi cidima maqna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi markaa lakinii afqidu julaybiiban war anigu julaybiib baan la ahay buu nebigu yidhi ninkani ilaahay rasuulkiisa qiimahaasu ku ag lahaa inuu u guuriyey maantana marka la dad tirsanaya iyaa geeriyooday reer waliba leeyahay waana joogaa raggayagii nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy anigu julaybiib baan la ahay ee fatlubuuhu fi lqatla bal dadka la dilay ka baadi doona julaybiib baa la baadi doonay waxaa la helay isagoo isna dhintay oo la dilay 7 gaalna ay ag yaalliin 7 dilay markaasay yara dileen aakhirkii aqatala 7 thumma qataluuh hada minii wa ana minhu buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ma 7 dilay markaasay dileen buu nebigu yidhi kaasi hada minii wa ana minhu buu nebigu leeyahy kaasi anuu iga tirsan yahay anna isagaa ka tirsanay kaasuu nebigu tirsanaya uu leeyahy isku koox baanu nay waa fool xun iyo waa gaaban yahay iyo hanti mala iyo nebiga hagtiisa waxaasi maha wuxuu ragga ku qiimaynaya raggu tirsanayo ee uu baadi goobayo muuqaalkoodu siduu u ekaa iyo gaabnidoodu intay leekayd iyo hantiday haysteen intay leekayd maaha wuxuu wax ku qiimaynayay u fiirso ninka nebi maxamed ku leeyahay hada minii
وأنا منه تضرب jeer buu ku celceliyay bay riwaayaadka qaarkood leeyihiin dabeetana madaxu gacmihiisa u dhigay intii laga aasayay nabi maxamed baa madaxiisa hayay sariir kale iyo rarab kale loo dhigay ma jirin ee gacmaha nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa lagu hayay intii godka loo qodayay ee la aasayay oo dhan ilaa uu qabriga ka dhigay nabigu calayhi salaatu wasalaam ayuha alaxiba waxay tilmaamaysaa حديث إمام الألباني بكسر أروريي صحيح الجنائز كان إمام أحمد بن حبان نوى صارين أصل القصة الصحيح المسلم كيف قلت الله وحوت الماما يا نبي الرجو قيمها أكتس كلها النوع هاي يرجع وحي لغو قيمين يوحوها موازين تو قلدان تيمك آد وقلدان توايو dadka waxa lagu qiimeeyaa jaahiisa mansabka uu haysto waa caaqil waa sultaan waa wasiir waa madaxweyne waa agaasime waa kornayl waa janan mansabka uu haysto ama jaaha uu leeyahay oo odaygii hebel laakiin raggu nebi maxamed agtiisa kaa kumay qiimaysnayn isagoo fadhiya nabigu calayhi salaatu wasalaam oo nin la fadhiya qola soo martay nin baa soo maray markaasuu ku yidhi man ra'yuka fi hada war bal ninkaa ka warran nin meesha maraya ninkii warbixintay ka bixiyey waa maxay ma taquuluuna fi hada buu nabigu tilmaamay ama man ra'yuka fi hada waxay idhahdeen rajulun min ashraafi innaas waa nin dadka mudan ka mid ah waa nin bay yidhaahdeen hadduu hadlana waa nin la dhegaysto hadduu gabadh ku weydiistana waa nin la siiyo hadduu erga kuugu yimaadana waa nin ergadiisa la aqbala bay yidhaahdeen ninkani annaga agtayada saasuu yahay bay yidhaahdeen wuu iska aamusay nebigu calayhi salaatu wasalaam mar dambe ayaa mid kale soo maray markaasuu ku yidhi ma ra'yuka fi hada bal kana ka warran أما ما تقولون في هذا كان ما يسقى محاورنا يسا وإذا هذا رجل من فقراء المسلمين كان وامد وحما هيستطيع مسلمين تكمل بيد هذا وأنين هدو قبلك ويديستنا على الصينين هدو إرقاك وي ما دان إرقا ديسا على أغبالين ووحي كيهورا كشيغان عكسي سوي كان كشيغان نبي عليه الصلاة والسلام حديثك بخاري كويا الله labadan nin dadku laba miisaan bay kala saareen mid miisaan bay saareen ashraafu naas inuu ka mid yahay waxay saareen inuu yahay nin loo guuriyo hadduu gabadh ku weydiisto oo hadduu hadlo nin la dhegaysto oo hadduu erga kugu yimaado nin ergadiisa la aqbalo ka kalena waxay saareen in masaakiinta fuqarada muslimiinta ka mid oo aan waxba mudnayn dadka agtiisa aan waxba ka ahayn نبي محمد عليه الصلاة والسلام أكتس سيدي كي نبي مركز وحيري هذا خير من ملء الأرض مثل هذا كان أيضاً إذن لليتا أي وحك خير بدن يدريد مجدو كان ما هكذا با كان كخير بدن وحويا دريد مجدو نوعنا من كان الشيء يسان دريد أردن ولا بوحيي وحاسكو دامه ننقره نينكن قرا داما بو نبي عليه الصلاه والسلام يعني ميزانكم ما هبو لي hadalka iyo magaca iyo mansabka iyo xoolaha iyo waxaad sheegaysaan ma aha miisaanku buu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam dadku markay madhaan ee muwaasiintu lunto casrigan aynu hadda joogno feera buurnidaaba la isku qiimeeyaa sooma tirahdaan waa six pack ninkani lix wasaladood buu caloosha ku leeyahay morocco iyo siduu u feera buuran yahay ama uu traininka u cayaaray waa ku sheekh maxamed qutbi odhan jiray waa cujuul bini aadama buu yidhi waa dibiddada ilaahayna qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay kuwa munaafiqiina isagoo ka warramaya waidaa ra'aytahum tucjibuka ajsaamuhum baa ilaahay yidhi haddaad aragto jidhkooda iyo weynida iyo qaabka iyo xoogga iyo say u eg yihiin waxa ku cajab gelinaya baa ilaahay yidhi jidhkooda laakiin
weliba waan yaquulu tasmac liqowlihim baa layidhi hadday hadlaanna warkooda waa dhegaysanaysaa laakiin maxay yihiin ilaahay wuxuu ku tilmaamay kaannahum khushubun musanada loox la tiiriyey bay la mid yihiin baa layidhi waa ilaahay kitaabkiisii qori la tiiriyey yaxsabuuna kula sayxatin calayhim hum alcaduwu faxdarhum qatalahum allahu anaa yufakuun ilaahay wuxuu tilmaamaya qolofta weyne inaanay alle agtiisa qiimo ka lahayn munaafiquba inuu qolof weynaan karo qiyaamahana waa ka nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ya'ti alrajul alcadiim alsamiinu yowma alqiyaama falaa yazinu cinda allahi janaxa bacuuda qiyaamaha waxaa la keenayaa mid weyn oo buuran oo xoog leh ilaahay agtiisa garab kaneeca lama miisaanaha baa la yidhi kaneeca intay leegta marka hore ayaanay garaab ahayn kaneeca lasii qaybqaybiyey oo baalkeed la soo qabtay baal kaneeco alle agtii miisaankiisu kuma aha markaasaa la yidhi haddaad rabtaan waxa akhridaan falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasnan aakhira miisaanba kuwaa lama saaro looma taago ayuha alaxiba caliy bn abi aalib baa wuxuu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabigii la odhan jiray cabdillaahi ibnu mascuud oo geed koray oo wax ka soo qabanaya ayay saxaabadu eegeen cabdillaahi ibnu mascuud waa maqashaan soo maaha waa saxaabadii cilmiga caanka ku ahayd laakiin muuqaal ahaan nin aada u dhuuban oo mijo dhuudhuuban oo tamar yar buu ahaa dabeetana cabdillaahi ibnu mascuud oo geed koray oo wax ka soo goynaya ayay dhudhumadiisii dhuudhuubnaa arkeen markaasaa la qosqoslay fadaxikuu min xumuushati saaqay ay min diqatiha addima dhuudhuubnidiisa raggii badh ku qosleen nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu weydiiyey ma tadxakuun war maxaa ku qoslaysaan larijlu cabdallaahi athqalu fi lmiisaani min uxud saxiixi ladabi lmufrad buu ku addinkaa yare fiiqane a ku qosasheen buu nebigu leeyahy ilaahay agtiisa buurta uxud wuu ka culusiyey waa buur dhan oo uxud la yidhaahdo oo madiine agteeda ku taalla buurta uxud ilaahay agtiisa waxaa kaga culus buu nebigu tilmaamayaa maxay rijlu cabdallah addinka wuu leeyahay cabdillaahi ibnu mascuud ayuha alaxiba qiimuhu ma aha abtirsiinta iyo reerkaad ka dhalatay iyo siday magac u lahaayeen reer hebelamaan oo laandheera ah oo qoladaa ka dhashay oo tiro badan oo fara badan ayaanu nahay ilaahay agtiisa waxba kama aha dadka ayaa u nasab fiicnaa nebi maxamed soo ma aha hadda nebi maxamed oo dadka ugu nasab fiican ayaa ilaahay kii adeerkiihe la dhashay yidhi tabbat yadaa abi lahabin wataba ma aghnaa canhu maaluhu wamaa kasab hadduu nasab wax tarayo abilahab buu wax tari lahaa dee socanka maaha haddii reer baan ka dhashay waa nin haashimiya oo quraysha oo kanaaniya mudur ku abtirsada oo la yaqaano ibnu kathiir wuxuu leeyahy abalahab waxaa loogu bixiyeyba wadaa'ada dhalaalka wejigiisa iyo quruxda daraaddeed ayaa loogu bixiyey buu leeyahy marka horeba laakiin quruxdaa iyo dhalaalkaa iyo reerkaa u ka dhashay waxba may tarina ilaahay wuxuu ku tilmaamaya subxaanahu wa tacaala tabbat yadaa abi lahabin watab gacmaha abilahab baa hoogay ya abilahab baa hoogay baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala ayuha alaxiba ilaahay wuxuu ina leeyahay subxaanahu wa tacaala bini aadamka anaa abuuray anigaa shucuub iyo qabaa'il ka dhigay shacabo kala gadisan kuwa indha yar kuwa indha waaweyn kuwa indha jeexjeexan anaa saa u abuuray baa ilaahay leeyahy waa khalqullah cidna iyadu ismay samaynin oo say doonayso isumay samaynin waa ilaahay sancadiisii dhammaantood qabaa'illa ka dhigay maxaa looga dhigay yaa ayuha annaasu innaa khalaqnaakum min dakarin wa unthaa wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'il litacaarafuu baa ilaahay marka hore aabbiyo hooyo qurun baa ku abtirsataan ama indha waaweynow ama indha yaryarow
أما عضاو هاو أما عين كان هاو أسل قلوب وذلادي عد مالك لا لقى كاني ما جرتو عد مالك لا كتمي ما جرتي أسل كلية يا وذلادي با إلهي لي سبحانه وتعالى أنا شعوبية قبائل إذن كدقي محل إذن كدقي با إلهي لي لتعارف الناس كو قرطان أنا ترى أن الرير هبل وين هبل واقع تذكرنا ما هذا يمد قرا وضح الله إذا ما بيننا كلا قرنين لكن وحنا كو كلا قرنين أيوة رير كليين يا مقعي كليين يا مدب كليين وللمعرفة لتعارفوا بالليل أما مركز النقطة قيمه مركز النقطتين إنه ميزان كتت كساره ما حين كسارين ما قالوا كذا شيء ما إنه عادي ما إنه مدوي ما يا إلهي يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم وحيدين كش شرف بدن بالليل الكريم ابن الكريم وحا أكرمكم عند الله الأكتيس وحيدينكم مضن إذنكم ماموصا كينا لو عبس بدن مركزا إلهي ولي إن الله عليم خبير إلهي ومد وحق وقال بدن وخبرت بدن ولي إذن كلا قرنية ألا أكتس وحكي شوكتان أيها الأحبة نبي عليه الصلاة والسلام قال أنتم ما كفرتين مكا قريش بدقنيد وددك اسكوينين يسي وورك يسي وين ددك حرمك الله دورتي يهين وحتى حجك ددك هلكي وكسو وعنا يعرف دي اللي تجي يدا نقو منهن قوليا هلكا ددك كلا تجي أنا هلكا سكاي أمبان كسر الله بنا حرمك كما بحنه أي النبي محمد الله عليه الصلاة والسلام مركو فرتين وحول يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها وارتضوا النبي عليه الصلاة والسلام إلهي وحويد ككحي كبر كيئس لوين دي جاهل لماذا يا أبا كفانكي فالناس الرجلان تاسوا وحي جاهلية ولا قبحي تدكوا والله أم النبي عليه الصلاة والسلام من صدحات ما تشيروه تدكوا والله ولا بديه رجل بر تقي كريم على الله متسم فله ولا كدور صده وإلهي أكتيس الشرف كله كريم على الله مدواكا ككلنا وامحي وفاجر شقي هين على الله بالنبي متفاجرة حمى السماين بدن شقية وهين على الله إلهي يكتيس كليته إلهي يكتيس مقعية ما مستونا كلهين والناس بنو آدم وخلق الله آدم من تراب حقا أبترك هدين الله يدنك يا دي آدم بكا وضعت ما دين آدم ندعو بلغ السماء النبي عليه الصلاة والسلام دي أبتركي إن الله يغانا نوع عسى ودتين هدي قيمه إن الله يغانا لبضا سنباتين صفة كلمة جرتو رغان نمضو وحلقو قيمة يقفكو انتو دينتي سحيستو وحلقو قيمة انت آني مغرياتكو حيابهم بنا آدم كقدية انت آني قدنين صدر أدد بإلهي وحلي من المؤمنين الرجال ومن انت الرقبة كم إذا الرجولة دانين الشيء يواكوه صدقوا ما عاهدوا الله عليه وحيكرون شيئين بلنك إلهي وقاضي لا إله إلا الله محمد رسول الله مركز هذا بلن بادقش وقوة بلنك كرون شيئين رب إليه سبحانه وتعالى فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا قارنا ساسي كوغيريودين قارنا جدك هيان بو الله ليه سبحانه وتعالى رغني مواطا ددك إلهي أكتيستا كو شرفت لي حقا لغا هلا حقاي جوغان إلهي وحلي في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال الرجال كوا كريماشا لغا هلا وقريها إلهي سبحانه وتعالى قريها ربي لها الله كوريالو
وإلهي سبحانه وتعالى هل لغو حسابك عيسى هل لغو كوريالو كوا كو كوريالا يوايو يسبح له فيها بالغدو ولا سال رجال فاعل غدك رجال با إلهي وقو تصبيح سيقالين هوريا قال انت بابا رجال كان صفاته محيتي لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله إلهي وينديسة يا عبسديسة كما مشغول الصه بدك أدونكو تجارة يا وحيبسك يا وحكا إنك هو عكسك والبرسلات هاي دم بيشهرته وحي دافع يا بعض هذا فرصة وينه لكن كوا كان إلهي وحكو صفين أين يهين محي الدنيا ما مشغول السبع إلهي لي بيع هي التجارة كما مشغوليا إلهي حسكي هي صلاة وقستيدة هي الزكاة بحستيدة وأيوه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار أيها الأحبة والرقد ذا الكود ويهي إني حق عليه وأعرران أدونك مركا لقا ورما يوحى لني فامشوا في مناكبها اسكا صعدوا إلهي أرساق دي سرات سيدا باليدي أما حق الذكر القرآن مركو كورما يو وسابقوا يصارعوا فاسعوا إلى ذكر الله وأرضى ففروا إلى الله حق عباداتك هي الدين تمرك لقا ورما يو قرآن تعابيرتا أرض بو استعمالك يدقدق ورك حق كان ماشي ربان إنه هرو قادان أي تهي أما أدونك مركي تشوكتو فامشوا في مناكبها بالليل اسكا صعدا والرق إلهي كنت المام يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله يا إذن مشغولين يا إذن مشغولين عرور يحول يباب كان إلهي حسكي يا إذن كمشغولين با إلهي كنت المام ما كم بدون يبقوا حكوا إلى الصحابة استحيوا من الله حق الحياة إلهي كحشود حشودك وحق ليه قال يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله وأرك حشودان الله بيدا إلهي رسولك سيو إلهي بانا مهدى اسكاله قال ليس ذاك أنا وارك شيء كما هب النبي لي ولكن الاستحياء من الله حق الحياة حشودك أن تلمام إلهي حق ليه لقى حشوده وكم النبي لي أن تحفظ الرأس وما وعاه مضح يوحو السيدة إنا دلالسه مدح محو السيدة دقو اندو عرب سن وحبو السيدة كوا إنا دلالسه حارانتك إلى السيد دكتادية إشادية أفكاقية وحاقاس إنا دلالسيد والبطن وما حواه على يوحي كوريكسن قلبي يوضنا يوحي لما يدبا إن هذا الالسه وحكى لولي ولتذكر الموت والبلا وإن حصوصته جيردة يا بابا حبالنا تجلس أدونك هو مال ما ير أدو كوبان ومالمو hadba maalinta joogtun baad la nooshay dareemadeeda qabtaa laakiin shalay dareemadii ha kugu soo noqon maayaan ma bayna noolaaneen wixii maalmii horeyna soo maray haddaynu weli dareensanay oo wixii mashaakil iyo cadho iyo dhib iyo wareer kugu dhacay hadday kaaba tegi waayaan aad saacad kasta xasuusanayso wad waalan lahaydba laakiin waa ilawnaa wixii shalaynu soo maray wuxuu doonaba ha noqdee maalinta aad joogto markaasi uun baad la warwar tahay haddaba xasuusta baa la yidhi geerida iyo baabaa dambe waman araada alaakhira taraka ziinata addunya baa la yidhi innagu waxaynu u dhimannayba waa quruxdii adduunka war ninkii aakhira doonaya tan dhaldhalaalkeeda waa iska ilaabaa buu nebigu leeyahy ninkii aakhira doonaya dhaldhalaalkeeda waa iska mubaax haddaanay xaaraana ku jirin laakiin maca daalik dee wixii cimriga iyo wakhtiga lagu bixin lahaa maaha sidaa ogeed buu nebigu wuxuu tilmaamaya waman araada alaakhira taraka ziinata addunya faman facala dalik
faqad istaxyaa min allahi xaqa alxayaa ninka sidan yeela buu nebigu yidhi war ninkaasaa rabbi ka xishooday xishoodkuu rabbi xaqu lahaa subxaanahu wa tacaala ayuha alaxiba raggu waa kaa iyo ninnimada iyo dadnimada iyo insaaninimada waxay sheegaan cumar ibnu lkhadaab oo rag la fadhiya maalin wuxuu ku yidhi tamanow bal nin walowba wax yididiilo maxaad jeclaan lahayd mid baa wuxuu yidhi waxaan jeclaan lahaa gurigan muggii oo dahaba intaan helo inaan ilaahay jidkiisa u bixiyo horta u fiirso saxaabadu say fakarayeen raggaas wakhtigaa noolaa maaha intaan helo inaan fooqaqa dhisto ee wuxuu leeyahy intaan helo inaan xaggee qabadsiiyo ilaahay dartii inaan u bixiyo cumar baa haddana ku celiyey tamanow bal ku noqda mar kalena hadda waxaa jeceshii sheega atamannaa low annahaa mamlu'atun lu'lu'an wa zubarjadan wa jawhara anfuqhu fii sabiili illahi wa atasaddaqu bihi baa haddana yidhaha wixii unbay sii badiyeen dahab qudha inaanu noqone birishiya sistowniska oo dhan dhagxantan qaaliga ah oo tiro badan waanu ilaahay dartii u bixinna bay leeyihin uma qaala tamanow waar haddana buu yidhi bal ku noqda qisada imaam alxaakim baa soo aroorinaya mustadrikiisa sanadkeeduna waa xasan bay culammadu yidhaahdaan ku noqda buu yidhi bal hadda mar kale waxay dhahdeen garan mayno amiiru lmu'miniinow wax kaloo aanu yididiilanno cumar wuxuu yidhi walakinii atamanna rijaalan mila abi cubaydata bnu ljaraax wa mucaadi bnu jabal وسالم مولى أبي حذيفة وحذيفة بن اليمان فأستعين بهم على علاء كلمة الله أنا وحن رجينا يا وحن تمنينا يا أبو ليهي أنا ورق ما دمها وحن ربا أبو ليه ذهبي يدك حنيو وحن ماها وحن دون يا أبو ليه إنه وحن أنا أدينا قال الله هلا نلا شو في عنان لك ورد الرجل الله هلا بين نلا شو في عنان سا رجع قالها سمية وحكرت شيء dad markaad hesho ayaad horumar gaadhaa dhaqaalo qudha hadduu yahay dadku waa ku baaba'aa muslimka ayaa ka dhaqaalo badan yaase ka dullinimo badan dhaqaalay heleen daara cirka ku jiran bay heleen isugu faanayaan daarta dunida ugu dheer baan dhisayaa maya ta ugu ballaadhan baan dhisayaa maya magaalada ugu dheer dunidaan dhisayaa magaalo iswada daba taxan oo gebigeedu waa intaan oo kilomitr laakiin sidaa u dhisan oo cirka ku tahay tareen baa dhex ordayaa la yidhi 5 daqiiqo koona ilaa koonaad ku gaa waxaasi ka fekerayaan guriga u dheer daarta u dheer magaalada u weyn dayaaradaha u waaweyn waxaa maaha nolosha waxaa horumariya quality-ga bini aadamkoo la bedelo dadka mawaasiintooda iyo mafaahiimtooda iyo waxay ka fekerayaan iyo siday wax u arkayaan oo bedelma nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam shaqadu qabtay waa taa muu qabanin inuu yidhaahdo barwaaqo iyo xoolo badan baynu keenaynaa iyo nin walba qasabad caaniyo biyaabaa loogu rakibayaa guriga cidina uguma rakibin rag bay ahaan maalina wax cuna maalina qada laakiin rag buu sameeyey rag saa daraaddeed cumar markay qoladani xoola sheegeen wuxuu yidhi anigu xoole uma baahniye waxaan rajaynayaa inaan helo abu cubaydata bnu ljaraax ninkuu nebigu ku tilmaamaya amiinu haadihi lumma أما معاذ بن جبل وأن لن يروا نبو قتل ماما أعلم المسلمين بالحلال والحرام نك أقوم بدل المسلمين حلال يا حرام أما سالم مولى أبو حذيفة نك عمر لها هدون نولي هاي سقى خليفة ونق لها مسلمين تا أما حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجع أنا نقول رجين لها أبو لي قواس وكلينا هلو وأن إلهي درتي واديك سدا مركزية الدين تتنين كوريالا إذن أيها الأحبة رجال لماذا عمر كلا قيمة بدنيد معدن يا جواهر يا ذهب يا وحل هلو إنك واحد مدوحي النور من يكسور ورين حول الله هلو نبينا وحط المام إنما الناس كالإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة ذكرني وحي لم يديه sidii geel boqola oo neef la fuulo laga dhex waayey waa marka la qiimo beelade waa marka rijaalkii la rabay dadka laga dhex waayo
boqol halaad oo wax laga fuulo laga waayey ayay la mid yihiin buu tilmaamaya rajulku kuf ah ayuha alaxiba warwar adduun baa dadka haya guri weyn ma haysatid lacag badan ma haysatid waxaan ma qaban kartid waa nidaamu tafaaha filosofka faransiiseed wuxuu sheegaya uu yidhi nidaamkii tafaahadu waa shay taafi ah liidashada dunida kuwa xoolo badan baa ugu taciisaysa ugu liita maanta kuwa ugu isdilka badan leh waa iyaga kuwa ugu xashiishada cabka badan leh waa iyaga kuwa noloshooda intay raalli ka ahaan waayeen qof bini aadam oo dhowr boqol oo kun oo dollar intuu isku qalay raba inuu bisad u ekaado miyaad aragtay oo intaasoo qalliina loo sameeyey si bisad loogu ekaysiiyo qof bini aadama miyaad aragtay oo intuu bini aadamnimada raalli ku noqon kari waayey raba inuu ey noqdo xadhig lagu xidho la wato oo afarta adin ku socda qof bini aadam oo sidii ilaahay u abuuray intuu raalli ku noqon waayo yidhaahda qof dumar ah layga dhigo xoogaagan iga laalaada inta goysaan meel jeexana lay sameeyo qof bini aadam oo sidii ilaahay u abuuray intuu raalli ku noqon waayo yidhaahda labada naas ha layga gooyo nin ha layga dhigo ما هم مساكين تضدك وحن سمينا أنت بدن وعلية القوم نرش عدد يالم ويدي معنى يالم ويدي وحي استلا طبقات كسرية وبدين هذه نرش إمام كل ما قيمة ماله قيمة كوية لما يسوق عن هذا وحكو شره ضربا لا يهلك كتاجن حبس ما يسوق inaad daar leedahay inaad buul leedahay adigu uun baad isma dhaanto laakiin muslimka dhibta haystaa waxay tahay isagiibaa wuxuu sii daba socdaa mid isba miisaanku ka lumay indhoole hagaya ka war mid indhala oo u shaacaynkaa leh haddaad tidhaahdo aynu kan daba galno yacni duul nolosha ku leh دول كلهم ما معنى الحياة بالجرين لاي ما معنى الحياة نولش محيطي نولو وحسكان محيطة هاي بيلي نولش محيطي نولش مايك آخرية إلهية وحكو حرام تبي معنى لاضي لكن جرين وايه وحلون نولي هيبا وح ماشي اللو تشوف البروفيسور أنين أرضيو وحكو يلو مسلمة أي سؤال لسوق هذا مكسوح يدي وأنا ندرك كده أيوه وأنا بروفيسور سؤال يروح سوق ولا مسته مسوح يدي وأنا العجا أنا وحبك فلين وما هالكاس كوتشرتي ما كسيابه كيدي يعني تنا إنه نجوح يقنا يسوى وكده عليه وأيوه حجرون أيوه وحي معنا صبينش وحي معنا والصبين يصيروا قرنين أيها الأحبة عهدي كان dadka majarihii baa ka habaabay marka darsigeegani wuxuu ku kooban yahay war majaru yawida ka habaabine wixii ugu qaalisanaa baa haysataan oo diin xagga alla ka timiyo hidaayadii rabba haysataane iyada qaata oo waxay idin sheegayso sameeya oo yaan daarahan iyo guryahan dhaadheer idin muuqanin وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين